waxaan jecelahay intiinii maqnayd inaan siiyo briefing waanan ka xunnahay inaad ka maqnaataan waxaa laga hadlayay waayeelka iyo odayaasha deegaanku ay ka hadlayeen kow nabadgelyada odayaashu waxay ka hadlayeen siday taageero u siin lahaayeen ciidamada qaranka dowladda Soomaaliland xuduudaheeda dhibaatada walaalaheen ee dhinac walba ka dhacaysaana inaanay aynu ka xunnahay sida ay ugu xun yihiin odayaasha deegaanku labada dhinacba wixii ka dhacay muhiimaddu markaa waxay ahayd in la caddeeyo inaan gobolkan duulaan garowe kaga iman waayo dadka deegaankan jooga xaqiiqdii ogyiin cidda weerarka wadda ogyiin waxaa kale sheegayeen in Muuse Biixi markuu doorashada u socday uu Caroolay u hoyday Taleex u hoyday Tiidali u hodlay Kalabayd u hoyday Laascaanoodna u hoyday waxaa kale sheegayeen doorashooyinkii ka dhacay dalkan nambarka u codeeyay inuu bahantee Muuse Biixi ay sheegay waxa soo dhan waxa weeye cid ay doorteen iyo cid aanay dooran ay kala cadeynayeen aad baan ugu faraxsanahay inay dadka deegaanku hadlaan oo clear gareeyaan cidda duulaanka ah xalay waa maqlayseen madaxweynahayagii international community-ga waliba Mareykanka iyo Ingiriiska hormood ka yihiin annaga wixii naloo soo jeediyay wali waanu aqbalay walina waan ku soconay ciidamadayadu awood bay u leeyihiin saacado yar inay garowe kaga soo hadlaan laakiin way ixtiraamayaan reer Nabi Aadan iyo heshiisiinta ay wadaan cid kasta oo wanaag wada waan soo dhaweynaynaa xalay waa maqlayseen madaxweynahayagii dadweynaha reer Laascaanoodna waanu u sheegnay iyaguna waa xogogaal cidda mar walba soo duulaysa waxaanu leenahay dagaal wiil baa ku dhinta labada dhinacba wixii ka dhintay waanu ka xunnahay in dhiig dambe daata ma doonayno waa bilihii cibaadada waa bilihii ilaahay dhiigga xaaraantinimeeyey cidda wadda waxaanu leenahay waar joojiya waliba nimankaanu tolka nahay baa dhiiran nimankaan isku dowladda nahay wayna maqlayaan wayna ixtiraamayaan beeshii caalamka way ixtiraamayaan laakiin waxaad moodaa nimankaanu tolka nahay ee aanu walaalaha nahay inay kala garan laayihiin walaalnimadii iyo dowladnimadii waxaan ugu baaqayaa maanta Itoobiya dowladda Itoobiya dowladda Kenya dowladda Djibouti haddii qolada ma jeerteen waxa ay wado ee ay leedahay dhulbahantiis warsageli waa qabaayil waxaan uga digaynaa inay berri toolana daaroodka Itoobiya qabsan doonaan ka Kenya qabsan doonaan waa fidna cusub